adduunyadu waa firash khalqigu wada fuushayahay faruuryaha laga hadliyo isfaham waa reer xukuma بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دا قرحة بدن شرفت لسيتهين وناكسنتهين الحمد لله. أنا قوافي عنها إني معي إلهي شري الشيطان هاي نقاهيو اللهم آمين إن شاء الله. وحنا بينا دي لو ذاقو حوغا يران شكا سوسية ما شاء الله تبارك الرحمن بريها وحن سكو ديينا سودا دادالو laasta markaan cabitaanka soo geliyay intii daawatay waan idin sheegay waxaan dhahay kiliba yar badan oo aan diyaariyay baan soo deynay insha Allah waxaan ku dadaalayaa markastoo aan chance yar helo inta yar aan sameeyo in aadin la wadaago hadii la yiraahdo waaba laga yaabaa inay hal qof dhiirigelin u noqoto hadda ka hor waxaan halaas ka dhigan jiray ilaahay hal qof uu san daawan ilaahay uu san yaani macnaheedu ma ahan dad badan aan helo laakiin hal qof haduu iga yaani faa'iido ajar iga helo يعني إيجا فايدة أنا جنا شربان كيلا يا الحمد لله مركا إلهي بفضل جاينا مع داسكله إن شاء الله وحنا باينا وحير أفضل صدق وحير أفضل بامين مش كل حجران هدي لها يدمو إن كو كانوا حاويان إن كم صرا دا بهاش كم صرا يوم حيه تون iyo waxaan isla shiitay barbarooni maalintaas gurigan joogay waxay ahayd jimicihii runtii haddana maanta waxa weeyaan arbaca weeyaan jimicihii baan kilibada yar sameeyay ka bacdi waa isku soo aruuriyay ka bacdi maadaama jimcaha badanaa shopping ka samaysano weegiiba hal mar waxaan sameeyaa intaanan wixii hore guriga yaalay baan horta sii dhammaystiraa si aan khasaare meeshaas uga imanin israaf iyo maaragtay wax la daadaadiyaan aysan u imanin marka waxaan sameynayaa matalan sida fruitka kale markuu soo hadhadho waxaan ka sameeyaa cabitaan khudaar wixii soo hadha inta aan salaado hadii kale way sii xumaanaysaa haday fridge ku sii jirto iyadana waan shiidaa alxamdulillah waa isku dardaraa wixii hadda waxaan isla shiiday kamsaro toon iyo barbarooni insha Allah hadhowtana kilibka yarwaantii aan yaraas kaga soo qaatay laakiin marka hadhowta caadi baad u arkaysaan kamsaladiyo wixii oo dhan dhinaca kale weelkan ka xalaya weelka subaxii lagu quraacday maadaama jimco ay ahayd alxamdulillah quraac yar oo iska fiican baan sameeyay maasha Allah marka weelkiisagana wii xalaya alxamdulillah yani maalin kasta qofku awoodo يعني وفيعان تاين مارت wax farxad la sameesto inkastoo jimcuhu de maalin gooni ay tahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalmihiisa ka doortay hadana waxa fiican mar kasta oo awoodid inaad alisti mar wax fiican oo familka ka farxiyo sameeysid marka waxaan sameeyay anagana badanaaba iskuulka carruurtu way ku qadeeyaan casho ban habeenkii sameyn karnaa iyo quraac subaxii qofkii ka gaara quraacda ka gaara marka intii aan diyaariyay baan insha Allah idin la wadaagayaa alxamdulillah barbarooniga yelowga weeyaan barbarooniga yelowga greenka iyo redka waxa ka casaanka iyo cagaarka waxa ka fiican kan yelowga af Soomaali wax lagu oran jiray kan ma garanayo yelowga af Soomaali ma ku jirin yellow baa loo kala waqooyiga yellow baa laga yiraahdaa waxa ka fiican oo ka fitamiin badan kan oo ka caafimaad badan yelowga ka fiican marka laakiin kaad haysataaba waa kii kale marka waxaan sameynayaa yelowgaas barbarooniga yelowga half baa harsana waxaan soo qaatay kamsar caleen ii taalay waxaan soo qaatay toon waxaan kala soo qaaday bahalka sakuumiga xabad in yar ka sii xabad intii yani oo yar baa taalay iyadana waxaan siinta tuur la iskaga shiido ka soo ayaba waa cunto ugu shiidnaysaa iyo mid hore oo barbarooni hore intaan u shiitay aan fridge-ka igu jiray baan dib isugu sii shiidaya marka hadii aad isleedahay isbuuc uu ka badanayaa fridge-ka waxa la gashtaa qaybta freezer-ka barafka la galiyaa laba shay baa lagu kala shubaa midna hoos waxa la galiyaa fridge-ka caadiga midna freezer-ka la galiyaa hadii freezer-ka uu kor yahay haduu hoos yahay meeshu doona kugu yaalo barafka la dhex galiyaa midna isbuuca aad isticmaalaysid waxa la iska gashtaa meesha caadiga fridge-ka caadiga marka laana waxa ogtahay isbuuci ku dhamaysanaysa aniga toonta iyo kamsarada iyo basasha subhanallah wax aad baan guriga uga isticmaalaa laana markaan anoo jecel markayga hore iyo markaan ogaaday caafimaad ahaan inay aad u fiican yihiin aad baan guriga uga isticmaalaa bal toonta biyaha aan cabayo baan ku dhex darsadaa xilligan islaahay dadku ma ka soo urinayo
marka toonta kamsarada iyo basasha iyo xabata soodaha iyo bahasha xulbada la dhaho intaaba gurigayga subxaan allah xawaajada caadiga igu dhex jiraan maasha allah hadda ka hor waaba soo duubay video anoo xabad soode iyo xulbad iyo xawaaji isla sameynaya so marka intaasaan isla shiidaya maasha allah tabaaraka raxmaan waa hawl iga degtay gabadh kastana waxaan ku boorin lahaa walaalo alaab waxba ha iska daadinin wax kasta waa dhaqaalahaaga waa gurigaaga waa noloshaada ama ha lagu qabo ama yaan lagu qabin dhaqaalaha inaan barano wax wanaagsan intaasaasaan kusoo dhameeyay maasha allah si fiican baad hadha uga bogan doontaan weelkii markaa iisoo harharay markaad waxsan sameynayso weel badan baa kugu soo baxbaxaya weelkii baan xalayaa xoogaa ma aqaani qabow anaga winter baan ku jirnaa mar qorax yar baa noo soo baxda marna way naga madoobaatay soo marka hadda weelka xalay mugdi bay noqotay balse inta ugu badan Australia qorax bay leedahay marka nalna ma shidi waxaan sari intaas dhag marka mugdi waa videoga laga dareemaya oomada weelka waxaan ku xalayaa laundry powderka caadiga because aniga maaragtay mashiinka weelka lagu dhaqdo sida maaragtay dishwasher kama yaalo waxaan haystaa muxuu ahaatay oomada dharka laundry powderka baan weelku xalaya sababtaan ugu xalaya waxay tahay weelka way cadaysaa subxaan allah hadda maaragtay biyaheeda ma ii kicinin oo ma ii xumbaynin oo marar badan insha allah waan soo duubi doonaa weelku xalaya laakiin laundry powderka weelka ku xasha weelka way cadaysaa qurux weelka dhalaal buu noqdaa waxay kaloo leedahay waxyaalaha kale weelka lagu xalxalo oo maaragtay dishka washerka waxa shaambada camal weelka lagu xasho waxay leedahay biyaha hadday wax ku raagto way uraysaa laakiin oomadan ma urayso sideedii bay ahaanaysaa hadda weelkaas waan ku xalayaa subxaan allah waan dareemayaa inaysan ii budh ii dhahaynin markaan weelkii dhammaysto wax in kalaan korka kaga shubayaa sababtoo ah waxaan ogahay guri family markuu yahay maasha allah mar walba weel baa soo baxaya marka weelkii qashinka unbaan rabash biinka ku ridaa and then weelkii soo baxoo dhan xagaasaan ku guraa saxamada hadhow marka lagu cunteeyo bahashaas iskaga guraa bas waan xalaa marka si biyaha aad u dhowratid ilaan waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay webi haddaad joogtid biyaha dhowra biyaha inaan dhowrno waajib baa naga saaran annagana wadankeena markasta waxaana lagu yiraahdaa biyaha ha la dhowro ma aqaana wadanka biyaha miyaa ku yar ma garanayo marka biyaha waxaan sameeyaa markaan weelka xalo haddaa marba shayba gooni u biyo raacisid biyo badan baa soo baxay laakiin dhinaca kale ayaan kaga gurtay sinkiga dhinaciisa kale waan ku aruuriyay hal mar markaan isla dhameeyeen hal mar baan soo dhaqaa markuu sinkigaasi uu buuxsamaba inta kale aan sii dhaqaa oo sii baxaya ayna gabdhaha Soomaaliyeed runtii waa gabdho dhexdooda wada xiran tahay yaqaan shaqada guriga iyagoo yar la soo baray hadana waa iska jeclaystay maybe qof marka yara caajis haduu daawado inuu ka kaco fadhiga anigaba markaan wax daawanayo maasha Allah gabdhaha ama gabdhaha ajnabiga ama gabdhaha kale waan jeclahay inaan kaco wata oomadii korkaan uga shubaya golof sida waaweyn markasta walaalayaal xidha I know marka weelka xalaysi waxa dareemsaa marka hore golof sida waxa doon nacas baa ismaleynaysa gacbadaq laakiin golof sida kuwaas yaryar softiga hadaad awoodid kuwaas waxay ku xun yihiin marka uu ka jeexmeen laakiin kuwan wiigaga iyo bilabad haysanaysaa $2 maxaa wax ka yar buuna aldiga gadaa soo marka kuwaasaan xidhaa gacmahayga waa nacabahay inay biyahayga taabtaan sababtoo ah waa cilaankan jecla mana raba inay gaga baxaan intaasaan kusoo dhameeyay waxaan soo gaaray dhinaca kan taybulka eeriyadiisa taybulka qadada maxay kabarkaare meesha ii yaala buugaagtaasaa saaran laakiin sawirkan aan meesha soo dhigay waa xaweeyaan shelfska buugaagta iigu jiraan kabarka wuxuu yaalaa waxa ii yaalin fadhiga dhinaca ka yaalin waxaan tusayaa yani buugaagta xaga saaran way ku soo khaldameen meeshana iskale kabarka yar bahalka taybulkaas ay saaran oo aan CC kamarada guriga igu jirtaan ku isticmaalaa runtii uma baahni waa iska tuuri lahaa laakiin taasaan ku isticmaalaa soo marka dhulka markaan tirtirayo hoos ka wasakhoobay hoos ka googaysa hadda waxaan leeyahay weelka guriga kabadhadayga bato waxaan leeyahay kabar yar oo maartay buufeenka weelka lagu guro ku soo guro halkaas soo dhig intaas weeyaan xaggan waxa ii jooga dharbaan warwaray wuu buuxaa dharkaasaan laalaabaya isagana iyadana waa dhiirigelin kale insha allah dharka marka waxaan sameeyaa markuu qalalo banaankan dhulkan ku daadiyaa meel aad arki doontaan markaan ku daadinayo bartaasaan ku laalaaba haddaan guriga la galo inta ugu badan waan caajisayaa haddaadan dharka markiiba laalaabina
wuu kugu badanaya kaa xumaanaya. So marka close lineka banaanka igu yaala banaanka dambe guriga xagga backyardkiisa dambe marka xaggaasaan kusoo laalaabaa. sababta dharkaas isugu batayna waxa weeyaan hadda 4 cashaan shaqeeya, waxaan haystaa 3 maalmood, maalin ciyaalkaas kale, maalin shoppingkaas kale, maalin naftaydaas kale. so marka dharkii baa igu batay, winterna way ahayd. subxaanallah, dhar baan warwaray, waxaan arkay dharkii wada qoyay, haddana mise maanti kale wuu qoyay. marka halkaasaan maalintaas kusoo laalaabaya, waqti ku siista intaan iska fadhiisto xaggaa wax iska dhegaystaan laalaaba. bes daahyo yaroon ka furay, fadhiga ka furay ayaan iyagana xidha ku waray. daahiyada kalarkan jeclahay waa kalarka aqua, kalarka hadda oo bluega light bluega camal ah, maxay tahay kalarka aqua la dhaho. iyo waxaan jeclahay kalarka cad, iyo haddaa yellow iyo aqua isku dartid way ismatch garaynayaan maasha allah. haddii aad cadaan iyo isku dartid red way isku soo baxayaan. haddaa isku dartid cadaan iyo yellow ama cadaan iyo orange way isku soo baxayaan. haddaa isku dartid cadaan iyo midnight greenka way isku soo baxayaan. aad baan u jecelahay waxaa, subxaanallah. waana daahyo fiican, quality leh, khafiifa. wallahi aniga winter iyo summer intaba waan xidhaa. waxaan ka gatay reer Australia way yaqaaniin, spotlight baan ka gatay, wayna jaban yihiin, hadda xitaa waa laga helayaa. waad un laalaabaysaa xitaa kaawiyad ma kaaga baahna tag. soo aniga gurigayga marka cadaan iyo wuxuu badan yahay aqua. waxaa ii soo raaca kalarka madow baa ii soo raaca. kursigaa xitaa banaanka ii yaala waa ujeedaan, isagana aqua weeyaan, wuxuu egyahay daahyadaas. marka aad baan runtii u jecelahay. ilaahay qudradiisa, buug haddaan soo gato ama buug hadiyad lay siiyo wuxuu noqdaa kalarka aqua, kalarka biyaha badda markay buluug camalna noqonin sidoodiina ka tagaan. kalarka qof kasta wuu yaqaanaa. waa kalarka hadda kursigaas iyo daahaas aad baan u jecel goonooyinka white inay noqdaan, khamaarada kalarka aqua ay noqdaan. run markaan labiska isku hagaajisanayo, yacni wax saas oo kale. intaa waxaan kasoo haray tableka qadadaan sameynayaa. bahalka yar ii kor saaran aad baan u jecelahay. maxay tahay saxanka wareegsan wuu wareegsamaa. ubaxaas koley waa jeclahay ubaxa, aad baan runtii xaqiiqatan u jeclahay. in weliba hadiyad laysiyaan jeclayn, anigu soo gato ma jecli, laakiin kan anigu anaa soo gatay. bahalka dhaladaas ama galaaskaas biyahan kusoo shubtay, biyihii hore ka bedelay iyo mid hore oo iigu jiro iga qalalay. laakiin dhibaato waxay ku taalaa aniga haddii laygu dhaho kaltuunay guri ka shaqeeya, waa ka shaqeyn karaa. kaltuunay buugaag iyo kabadho dhan oo gurigaaga ka dhig, maxay tahay library ka dhig, waa ka dhigi karaa. laakiin dhibaata waxay ka timi guri sharax haddaad ugu tiraad ma sharax yaqaani. hadda ubaxaa yar sida iskuma match garayn karo, mid xaggan aan u jeediye, mid beri baan u jeediyey. so next time insha allah waxaan sameynayaa sidiisa intaan caleemaha ka jarjaro un baan dabada isaga gelinaya, because sidiisa horaa qurux badnayd. intaas waa intaas. bahalaha galaasyada oo silfarka dhaadheer, GB High 5 baan ka gatay hadda ka hor. boxing daygii reer Melbourne, reer Australia way la wada garanayaan. cusbada waxyaalaha GB High 5 baan ka gatay. waxaan waliba gatay xilliga maaragtay boxing dayga ama good fridayda, markay hadda ay dhawaan inagu soo biiriyeen. awal boxing dayga keliyaan lahayn oo maaragtay seel wax yani la jebin jiray alaabada oo raqiis laga dhigi jiray. laakiin hadda good fridayna way noogu soo dareen, ama iyaga black friday waxay doonaan ha ugu waceen, maalin madoowi ma jirto. marka maalintaasaan soo gatay. badanaa waxay ka dhigaan half price bay ka dhigaan inta ugu badan, ama waxda qaar baa xitaa 80% laga dhigaa oo maartay 80% off laga dhigaa, laakiin ma badna. marka xilligaas oo kale maartay marka rabtid waxyaalaha sida mashiinada, alaabahaas oo kale, xilliyadaas la iska soo gataa si maartay qaybta dhaqaalaha kale. marka insha Allah waxyaalaha aan ku shushubo mar baan kasoo diyaarinaya, laakiin qurux weeyaan xaqiiqatan, inkastoo aan dareemay miiskiniga yara fool. marka insha Allah biidmillaahi raxmaan intaas ayaan rabaa inaan kaga tago, haddii ilaahay raali ka noqdo. walaal channelkayga haddaad ku cusubtahay insha Allah soo dhawaaw, gacmo furan, qalbi furan, subscribe ide. haddaa hore ila joogtay insha Allah like saar, comment iyo qreeb. haddii aad awoodid, haddii aadan awoodina waxa way walaal macaan, waad ku mahadsan tahay. waan jeclahay runtii inaan soo badbadiyo gabar walaashay Faadimo Muna ayaa markasta waxay igu encourage garaysaa kaltuun channelkan ama ka hadal, wax ku soo kordhi ama iska xidh meesha iyo meel cidlaahi furnaan maanta oo dhan. marka insha Allah waa soo dadaalaya, walaashayna waa uga mahad celinaya dhiirigelinteeda.
inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo meel kastaa joogtaan bash barwaaqo ku jooga biidmillaahi baari ilaahay qof kasta meeshiisa ha ku xifdiyo allaahuma aamiin haddii ilaahay raali ka noqdo waxaan isku dayayaa inaan soo dadaalo inta ka horeysana insha allah lay cudur daaro aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu